turkiga awoodda qarsoon ee mustaqbalka dunida. Inna fatahna laka fathan mubina wa yansuraka Allahu nasran aziza. 100 sano ka hor xilligan oo kale waxa burburtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta. waxay ahayd boqortooyo islaamiya oo jirtay 600 oo sano kana talinaysay inta badan koonfurta Yurub, bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika. Talaabooyinka uu Erdogan qaadayo xilligani mar kale ma soo celin karaan doorkii uu Turkiga ku lahaa caalamka. goobta juqraafi ahaan uu ku yaalo Turkiga iyo saameynta wiilka talada haya suurtagal ma ka dhigi karaan in mar kale riyadaasi la gaadho. qodobkaasi ayaan idin kula wadaagi doonaa tabinteena xilligan. marka hore aan gudmar kooban ku sameeyno marxaladaha ay soo martay taariikhda siyaasadeed ee Turkigu. Turkigu waxa uu ku yaalaa goobta loo yaqaano Anatolia, oo goob juqraafiyeed oo ahmiyad weyn ugu fadhida caalamka. waa buundo isku xidha dunida qaybaheeda, waana isla goobtii lagu dhisay boqortooyadii Cusmaaniyiinta sanadkii 1299. boqortooyadaasi waxay ahayd tii ugu dambeysay ee islaami ah ee ka talisa 3 qaaradood. burburkii dawladdii Cusmaaniyiinta iyo sababihii dhaliyay. markii la gaadhay sanadihii 1800, boqortooyada Cusmaaniyiinta waxa ku bilowday calaamadaha burburka. xilligaasi waxaa Turkiga loo bixiyay naanaysta ninkii Yurub ee bukay. dhaqaale xumo baahsan iyo in ay lumiyeen goobo hore oo ay ka talin jireen waxay ahaayeen sababaha koobaad ee burburka Cusmaaniyiinta sababta uu noqday. jabkii ku dhacay xulafadii Cusmaaniyiinta ay qaybta ka ahayd ee dagaalweynihii koobaad ee adduunka waxa uu horseeday in Turkigu uu lumiyo dhulka ugu ballaaran ee Cusmaaniyiintu ay ka talin jireen. ugu dambeynna boqortooyadaasi waa ay duntay. Ataturk, aabihii Turkiga cusub. Turkigu waxa uu ka guuray nidaamka boqortooyada isagoo u diga rogtay nidaamka qarannimada. waa hanaan uu hogaaminayay Mustafa Kemal, taliye ciidan oo ka hor yimid nidaamkii boqortooyada. 1919 waxa uu iclaamiyay dagaalka gobonnimo doonka ee Turkiga. guulihii uu ka gaadhayna waxa lagu dhisay Turkiga cusub ee maanta jira. 1923 waxa lagu dhawaaqay Jamhuuriyadda Turkiga oo madaxweynihii koobaad ka noqday Mustafa Kemal. waxa uu qaatay naanaysta Ataturk, aabaha Turkida. waxa uu xidhay maxadada islaamiga ah. xuruufta carabiga ah waxa lagu bedelay tan Laatiinka. habdhaqanka reer Yurubna waxa uu noqday mid si aad loo buunbooniyay. Ataturk waxa uu dhintay 1938. We record the passing of a wise and good ruler, Kemal Ataturk. 1952 Turkiga waxa uu ku biiray gaashaanbuurta NATO. dagaalkii qaboobana waxa uu la saftay garabka Mareykanka. Turkiga cusub ee maanta. 2005 Turkigu waxa uu bilaabay ololaha uu qaybta kaga noqonayo midowga Yurub. waa amin uu talada hayay Recep Tayyip Erdogan. falanqeeyaasha qaarkood oo arrimahan ka faalloonaya gaar ahaan farqiga u dhaxeeya Erdogan iyo Mustafa Kemal waxay sheegayaan in kala duwanaanshaha koobaad uu ka bilowdo kuna dhamaado in Erdogan aanu ogolayn ilbaxnimada reer galbeedka, taasi beddelkeedana uu isu arko hogaamiye islaami ah. tan iyo markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaare loo doorto Erdogan sanadkii 2003 iyo markii dambe ee uu madaxweynaha noqday 2014 waxa muuqanaysay cabsida laga qabo awoodda qarsoon ee Turkiga ee dunida ku soo socota, sida ay ku doodayaan dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda. waxa abuurmay shucuub tiro badan oo dunida muslimka ah kuwaasi oo taageero weyn u muujinaya hogaamiyaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. siyaasadda Erdogan waxa qayb ka noqotay in la laalo ganaaxii saarnaa xijaabka iyo in uu dib u furo masaajidkii hore ee Cusmaaniyiinta ee Hagia Sophia oo Ataturk hore madaxaf ugu bedelay. tani waxay ahayd mid isaga u soo jiiday sumcad weyn, inkasta oo ay jireen kooxo kacdoon sameeyay kuwaasi oo aan talaabada tan la dhacsanayn. kaalinta Turkiga ee caalamka. sumcadda uu Turkigu ku yeeshay bulshada caalamka gaar ahaan tan muslimiinta waxa ay kor u qaaday saameyntii siyaasadeed ee Turkigu dunida ku leeyahay. waxaaba lagu tilmaamay mid mar kale iib geynaya boqortooyadii Cusmaaniyiinta. marka laga yimaado goobta juqraafiyeed ee uu Turkigu dhaco, waxa kale oo saameyntiisa qayb weyn ka qaatay in uu yahay suuq muhiim u ah isu gudubka gaaska dabiiciga iyo saliidda caalamka iyo in uu ku yaalo gobol colaado ba'an ay ka oogan yihiin. waxa uu kulaalayaa dabka ka holcaya dagaalka sokeeye ee Suuriya, colaadda ka oogan Liibiya, xiisadda Nagorno-Karabakh, dagaalka weli ka socda Ukraine iyo xiisadda caalwaaga ah ee bariga dhexe. taasi waxa ay si dabiici ah Turkiga ugu riixaysaa in uu ciyaaro doorka kaga aadan arrimaha juqraafi siyaasadeed ee gobolka uu ku yaalo. Erdogan waxa uu saaxiib dhow la yahay madaxweynaha Ukraine Zelensky, si la mid ah madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. dagaalka Ukraine ka socda waxa uu ka qaatay doorkiisa dhexdhexaadinta.
sidoo kalena waxa uu ka shaqeeyay in xal loo helo qadiyadda Falastiiniyiinta isaga oo ku jira dadka aaminsan xalka labada dowladood laakiin sidaasi oo ay tahay waxa uu si banaan yaala marar kala duwan u cadeeyay in Xamaas iyo kooxaha iska caabinta Falastiiniyiintu ay yihiin halgamayaal xaq u dirir ah argagixiso haddii ay jirtana ay tahay Israa'iil intii uu xukunka hayay Rajab Tayyip Erdogan waxa kor loo qaaday joogitaanka ciidamada Turkiga ee banaanka dalkiisa waxa uu xidhiidh ganacsi oo hor la samaystay wadamada Shiinaha Ruushka iyo India iyo tan ugu weyn oo ah ka shaqaynta xiriirka diblomaasiyadeed ee wadamada Afrika iyo Turkiga isaga oo booska kala baxay wadamada Afrikada galbeed ee uu Faransiisku baneeyay ugu dambeyntiina inkastoo ay jiraan waxyaabo hoos u dhigaya awoodda xawliga ku socota ee Turkigu ku yeelanaya caalamka oo ay qayb ka yihiin dhaqaalaha Turkiga oo xumaaday iyo wadamada reer galbeedka oo ula booca ugu tukubaya haddana sida ay xeeldheerayaashu qabaan Erdogan waxa uu u muuqdaa mid raacaya raadkii awowyadii Cismaaniyiinta